بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. cashirkii hore waxaynu kaga soo hadlaynay tobanka arrimood ee keeni kara in wariyihii la duro. Markan waxaynu soo qaadanay xadiidka marduudka ah ee la diidayo in dhowr siyaabood lagu diidi karo. Waxaan u qaybinay labo. Labada waxaan nidhi mid waa inuu saqdi yimaado, isnaadkii xadiidkan lagu soo wariyey jidka uu inoogu soo gaadhay ayaa kala dhiman, waxbaa ka maqan. Qofba xagga hore ka maqan, qofba xagga dambe ka maqan. Waxaa dhici karta inuu dhexda ka kala go-an yahay. Waxaan nidhi taas waa mid. Midda labaad ee dhici karta iyaduna waxa weeyaan in isla isnaadkiioo xidhiidhsan qofkii warka soo warinayey dhibaata ay haysato, oo ama aan la garanaynin ciduu yahay, ama uu beenawaas yahay oo been lagu sheegay inuu xadiis nebiga sal slam ka been abuurtay, oon de markaa lagu kalsoonaan karin waxa uu sheegayo. In qofka warkaas soo warinaya been lagu tuhumsan yahay, oo in yidhi markaas warkiisu matruuk, waa la iska tuuraya, waxba laga soo qaadi maayo. Iyaduna dhacda in qofkan khaladaadkiisu ay badan yihiin, sida awgeed maadaama khalad badan uu ku dhacayo, in qofkaas la iska dayno leeyahay kalsooni laguma qabo waxa uu sheegayo. Qof iska dhoohanoo xitaa wixii loo laqimo iska qaadanayo leeyahay sidaas uu ahaaye adiga noo sheegay, haddana waa yahay sidii ku tegaya. isna khafladaasna lama ogolo. Qofka inuu qof dhiifoona wax fahmayo oo xadiidkiisa iyo warkiisa lagu kalsoonaan karo uu yahay. Sidoo kale waxaan ka hadalnay ismoodsiin inay dhibaato keeni karto. Qofkii war si uu ahaa si aan ahayn intuu ismoodsiiyo inuu sidii kusoo wariyo. Qaarkoodna waan soo tilmaanay xitaa culimada xadiidka waaweyn, imaam maalik oo kale, in gabkaasoo kale uu ka dhici karo, oo bani aadan baa leeyahay. Marka waxa qofka lagu qiimeynayo waxa weeyaan in arrimahan xadiidka lagu diidi karo. Qof kasta isku si looguma dabaqayo, qofkuu yahay baa loo eegaya. Imaam maalik hadduu wahmi ka dhaco laba magac kala bedelo, lama mid aha qof kale oo nabiga sal slam been ka sheegay xadiidkiisu mawduuc yahay. Marka qof walba tiisaa lagu qiimeynaya. Gefkii qof ka dhacana waxaa lagu qiimeynaya waxyaalaha uu soo wariyey iyo gefkaasi inta uu leegyahay. Gef yar baad ku dhacday, qofkii laguma tuuray. Waa la qiimeynaya si guudba qofka loo qiimeynaya. gefafka yaryarna meeshooda lagu tilmaamaya ee qofkii laguma wada tuuray. Waxaan kaloo kasoo hadalnay in faasiqnimada iyo fisqiga in ay dhibaato u keenayso cadaaladii qofka, oo qofkii in aan de lagu kalsoonaan karin ay keenayso hadduu faasiq yahay. Maanta waxaan eegaynaa insha allahu tacaala mukhaalafadii. Mukhaalafaduna waa qodobkii toddobaad ee la xiriiray dhanka sugnaanta warka, dabdigii la doonayay. Aniga xadiidka maqbuulka ee la qaadanaya waa inuu 5 shardi leeyahay. Shantaas shardi waxaa ka mid ah inuu yahay taam dab, si buuxda inuu warkaasi u sugan yahay, qofka soo warinaya si fiican warkii uu u sheego. Marka haddii dabdigii iyo sugnaantii warka hadal uu ka yimaado, dhibaatadeedii ayaynu isla eegaynaa iyo noocyada kala duwan ee ay yeelan karto. Alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay uma almukhaalafatu, mukhaalafadii inuu qofkii xadiidka soo warinayay raawigii inuu dadkii wax ku khilaafo, in kaanat haddii ay tahay bitagyiiri siyaaq, habdhaca xadiidka iyo qaabka uu u socdo ee uu ku imanayo, haddii uu isbedel ku yimaado. Wuxuu khilaafay warkii, jidkii warku ku socday ayuu khilaaf ka yimid oo dadkii ku khilaafay waryahani. Marka haddii ay sidaa tahay oo siyaaqii iyo jidkii uu warku ku socday haddii wax ka bedelo, warkaas waxaa la leeyahay mudrajul isnaad. waxaa loo yaqaanaa mudrajul isnaad. aw bidamji mawquufin, haddii uu isdhexgeliyo oo isku daro mawquuf bimarfuucin, marfuuc buu ku dhex daray. hadal nebiga marfuuc halkan looga jeedaa. marfuuca macnihiisa way inoo iman doonaa, cashar kale ugu tegaynaa. laakiin halkan qaabka u socota waxa weeyaan, marfuuc markuu leeyahay hadal nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey oo nebiga sal slam loo kor yeelay, haddii uu ku dhex daro hadal mawquufa, yacni hadal cid kale ay leedahay, haddii labadaas ay isku dhex darmaan, isku dheehmaan, markaas waxaan ku magacaabaynaa mudrajulmatni. mudrajulmatni ayaan ku magacaabaynaa. halkan waxa weeyaan xadiidka nooc ka mida oo la yihahdo mudraj ayuu inoo tilmaamaya.
mudrajku wuxuu u qaybsamaa siduu halkan ku sheegayo mudrajul isnaad oo isnaadkiisii ayaa wax la dhexgeliyey waxbaa lagu daray ama waa mudrajul matni matnigii iyo xadiidka warkii uu xadiidku xambaarsanaa ayaa waxaa lagu daray waxbaa lagu daray tusaale ahaan warkii hadalkii saxaabiga iyo hadalkii nebiga sala allahu alay wasalam ayaa isdhex galay hadalkii taabiciga iyo hadalkii nebiga sala allahu alay wasalam ayaa isdhex galay marka haddii xadiidka matnigiisii ay wax dhex galaan wax ku darsamaan waxaan leenahay magaciisu waxa weeyaan mudrajul matni haddii isnaadkii iyo silsiladii lagu soo wariyey ay wax dhex galaanna waxaan leenahay waa mudrajul isnaad labadaas ayaan u kala qaybinana aw bitaqdiimin ama wuxuu ku yimid mukhaalafadu waxay ku timid bitaqdiimin wa ta'khiirin horumarin iyo dibdhigid waxbaa isdabamarin baa timid intii horeysayna dib baa loo dhigay intii dambeysana horaa lasoo mariyey warkii baa isdaba maray oo halkaas waxaa ka timid waxa la yidhahdo inuu xadiidkii noqdo maqluub xadiid gedisan oo meeshii la rabay inay xagga hore ahaato oo xaggii dambe tagtay xaggii hore xaggii dambe meesha ahaydna sidoo kale wixii oo dhan baa isku darsamay oo wuxuu noqday maqluub madaxuba ku taagan yahay waa xadiid rogan oo la qallibay sidaa awgeed wuxuu leeyahay haddii mukhaalafadu ay tahay bitaqdiimin horumarin meeshii uu ahaa meelaan ahayn baa la geeyey waa la hormariyey aw ta'khiirin ama wixii horeeyaba dib loo dhigay yani waa istaba mareen istabamarintaas waxaan leenahay xadiidkan waxa weeyaan waa xadiid maqluub ah uu kala rogan yahay wuu qalliban yahay isagana wuxuu noqon karaa marduud in la diido ayaa iman karta taasna waa mid sida mukhaalafadu waxay ku imaan kartaa aw biziyaadati raawin raawi baa lagu daray meeshii siyaaqi iyo sanadkii uu xadiidku ku yimid ayaa waxaa dheeraad ku noqday oo lagu siyaadiyey raawin wariye kalaa lagu siyaadiyey xadiidkii oo dhammaystiran oo sanadkiisa uu xiriirsan yahay ayaa waxaa dhici karta wariyayaashii mid ka mida inuu intuu mukhaalafo sameeyo uu cid dheeraad ah ku daro si khalada ugu daro nooca saasoo kale ah ee weriye dheeraada lagu daray waxaa la yidhahdaa almaziid fi mutasili alasaniid midka lagu kordhiye lagu siyaadiyey muttasil alasaniid asaniidda xidhiidhsan muttasil alasaniid asaniid xidhiidhsan oon waxba ka maqnayn oon cidi ka dhinnayn ayuu qof dheeraada kusii daraya kuwan magacooda waxaa la leeyahay waa maziid fi muttasil alasaniid aw ibdaalihi ama raawigiiba waxaa la bedelaya halkan almaziid fi muttasil asaniid mid baa lagu daray dheeraada halkanna waxaa imanaysa laguma darine waa la kala bedelay meel xadiid lagu yaqaanay hebel inuu soo wariyo isnaadka uu ku jiray ayaa mid kale lagu bedelay ibdaalkaasi haddaba markuu yimaado hadu waxay ku socotaa raawiga aw biibdaalihi raawigiiba waa la bedelay walaa murajax wixii markii la bedelay riwaayadii ay mukhaalafo timid wax aan ku kala rajaxno oo aan ku kala saarno ma hayno waan isku daynay in aan asaaniidan aan kala hagaajino kala soocno oo mid walba meeshiisi ku celinno laakiin waynoo suurto geli weyday wax aynu ku kala rajaxno oo aynu ku kala saarno ayaynu weyne haddii ay saas dhacdo oo aynu kala saari kari weyno labada xadiisyadaas mukhaalafadu ku timid waxaanu ku magacaabaynaa falmudarib xadiidka waxaan leenahay waa mudarib mudarib xadiid isku rabshadaysan oo isku buuqsan buu noqonaya ma xasiloona meeshii saxda ahayd iyo ciddii saxda ahayd soo warisay iyo sidii saxda ahayd uu ku yimid jidkii saxda ahaa ee uu ku yimid lama garanayo waayo dadna sidan bay ku warinayaan kuwana sidan bay ku warinayaan kuwana si kale ku warinayaan magacyadii iyo siday u kala horeeyeen iyo intay yihiin baa laisku khilaafsan yahay si kastoo loogu dadaalana waa la kala saari kari waayey marka waxaan leenahay xadiidkani waa mudarib waqad yaqacu libdaal soo mu dhihin mukhaalafadu waxay ku iman kartaa ibdaal iyo kala bedelid wuxuu ku leeyahay waxaa dhacda waqad yaqacu libdaalu ibdaalkii kala bedeliddu wuxuu u dhacaa camdan si ula kaca ayaa loo sameeyaa marmarka qaarkood in wariyayaashii la kala bedelo ama sanad xadiis lagu soo wariyey mid kale lagu bedelo sababtana waxa weeyaan imtixaanan cid baa lagu imtixaamaya qofka raba xadiiska aqoontiisa xadiiska in la ogaado la imtixaamo
kabacdina asaaniiddii baa laysu dhex gelinayaa. waxaa la rabaa inuu ma kala garan karaa mise ma kala garanayo. hadduu yahay qof xadiidkii aqoontiisi si fiican ugu raasukhday oo kala garanaya, wuxuu leeyahay xadiidkan sanadkiisu kan maaha, sanadkiisa saxda waa sidan, labadan qof baa la isku khalday, waa in sida la kala yidhaahdo. marka la imtixaamayo waa la isu dhexgelin karaa. ibdaalku halkaa wuu ka iman karaa, laakiin caadi ahaantiisa lama ogola in sidaas la sameeyo. laakiin wuxuu inoo sheegaya marka imtixaan ay tahay, iyadu waa xaalad kale. aw bitagyiirin, mukhaalafadu waxay ku iman kartaa bitagyiiri xuruufin maca baqaa'i siyaaq. carabiga waxaan ognahay inay jiraan xarfo isku si u dhigma, laakiin lagu kala garto dhibcaha. hadii waxaan ognahay xadii iyo khadii iyo jiimkii dhibicdii waa lagu kala garanay. daalkii iyo daalkii waa sidoo kale, siinkii, shiinkii, saadkii iyo daadkii. xarfahaas waxaa lagu kala garanaya dhibcihii, iyadoo qoraalkii uu sidiisii yahay. haddii xarfihii ay bedelmaan, aw bitagyiiri xuruufin, xuruuftii hadday bedelmato maca baqaa'i siyaaq, iyadoo qoraalkii iyo sidii u ahaa uusan bedelmin oo sidii yahay, falmusaxaf waxaa la yihahdaa almusaxaf iyo walmuxaraf. musaxaf iyo muxaraf sida u kala duwan yihiin waan u tegaynaa insha allah tacaala. marka haddii khalad higaadeed, qoraalkii khalad higaadeed baa galay oo xarfihiiba jiim iyo xa baa isku khaldamay, ama waxaa iman karta in maxay ahayday iyadoo qoraalkii shakalkii iyo xarakadii la siinayay ayaa isku khaldantay. sidaasoo kale markay timaado musaxaf iyo muxaraf ayay noqonayaan. walaa yajuusu mana banaana tacamudu tagyiiri ilmatni binnaqsi walmuraadif, in si ula kaca, walaa yajuusu ma banaana tacamudu in si ula kaca loo sameeyo tagyiiri ilmatni, bedelidda matniga. matnigii xadiidka uu ku yimid in si ula kaca loo bedelo ma banaana. binnaqsi, iyadoo wax laga reebaya, waxbaa laga dhimaya. walmuraadif, ama waxbaa lagu kordhinaya. in wax lagu daro iyo in wax laga jaro toona ma banaana, si ula kaca xadiidkii looga jaro. ilaa licaalimin, marka laga soo reebo caalim, qof caalimku oo aqoon u leh bima yuxiilu lmacaanii, macaanihii wax bedelaya. qofka keliya ee loo ogol yahay in uu xadiidkii macnihiisi xadiidka uu soo gaabsado, ama uu macno ahaan u wariyo, uusan ereyadii qaadanin, waa culimadii garanaysay ereygani macnihii ma bedelaya mise ma bedelaya. kuwaasun baa loo ogol yahay oo samayn kara in ay matnigii wax ka bedelaan. ka bedelida maxaa looga jeedaa? hadda xadiidkii oo dhammaystiran, sheekhu ma dooni inuu soo deliishado, qayb ka mid ayuu rabaa inuu ka soo qaato. saasoo kale waa naqsi buu sameeyey, in buu ka qaatay. taas dhibaato kuma jirto, waayo sheekhu wuu garanayaa, hadduu takhasuskiisi yahay, in xadiidka macnihiisi sidan ma ku bedelmayo mise kuma bedelmayo. laakiin qofkii aan garanaynin, waxaa laga doonayaa sidii uu u maqlay oo xadiidku ahaa inuu u sheego. laakiin qofkii kale ee garanayey, ee khabiirka ku ahaa culimmadii xadiidka, in ka mida xadiidkii bay soo warin karaan. wayna badan tahay in aragno xadiidkii oo qayb ka mida lasoo warinay. sidoo kale in tagyiirka la samaynayo haddii macan ahaan loo soo wariyo xadiidkii, intii ereyadii uu qofku ku maqlay uusan u soo warinin siday ahaayeen, laakiin macan ahaan uu warkii u sheego, ereyo la macna ah kuwii kale inuu isticmaalo. iyadana waxaa keliya loo ogol yahay caalimin bima yuxiilu lmacaanii, qof garanaya wixii macnaha bedelayay. soo aragnay imaam shaafici raximah llahu tacaala markuu ka hadlayay shuruudda qofka xadiidka warinaya wakiil ahaa, qofku haddii uu xadiidkii macno ku warinayo, waa inuu yahay qof garanaya waxa macnihii bedelaya. haddii uusan ahayn qof garanaya wixii macnihii bedelaya oo uu macnihii ku soo wariyo, waan tuurayna warkiisa. laakiin haddii isagoo wixii aan fahamsanayn uu haddana sidii u ahaa ee uu u maqlay u soo gudbiyo, isagoo sidiisii u xifdiyey, hadduu soo gudbiyo waan ka qaadan karnaa. laakiin isagoon macnihii garanaynin oo aan fahamsanayn, hadduu isku dayo inuu intuu xadiidka ereyadiisa kusoo gudbin lahaa oo macno ahaan u sheego, iyada waa tuuris weyaan. waayo waxbuu bedeli karaa, xalaal buu xaaraam ka dhigi karaa, xaaraam buu xalaal ka dhigi karaa, sida imaam shaafici raximah llahu tacala inoo sheegay. marka wuxuu leeyahay walaa yajuusu ma banaana tacamudu tagyiiri ilmatni, in si ulakaca matnigii loo bedelo binnaqsi, iyadoo wax laga jarayo, walmuraadif wax lagu darayo,
ilaa licaalimin marka laga soo reebo qof garanaya bimaa yuxiilu lmacaani waxa macnaha doorinaya ee bedelaya. fain khafiya almacnaa xadiiskii macnihiisa hadduu inaga qarsoomo, xadiiskii macnihii ereyadii qaar baa la fahmi kari waayey, macnihii baa qarsoomay. ixtiija waxaa loo baahday ilaa sharxi alghariib, ereyada ghariibka ah ee aan la garanaynin ee cusub in la sharxo ayaa loo baahday. wa bayaani lmushkili minha, iyo in la bayaamiyo oo la caddeeyo ereyada mugdigu soo galay ee u baahan fasiraadda iyo faahfaahinta. haddii xadiiskii macnihiisu uu inagu uu qarsoomo oo la fahmay xadiiska macnihiisu muxuu yahay talow, ereygan muxuu yahay, marka waxaa loo baahanayaa in ghariib alxadiis kutub la yidhaahdaa jira oo inoo sheegay ereyadan faahfaahiye macnahoodii, ereygaas macnihiisu waa sidaas, ereyga macnihiisu waa sidaas, ereyga macnihiisu waa sidaas. wa bayaani lmushkili minha, iyo in waxyaalihii dahsoomay ee la fahmi waayey in la bayaamiyo oo la caddeeyo. marka intaas ayuu insha allah tacaala casharkeennu intan ayuu maanta ku saabsan yahay. waxaan sameynaa inaan tusaalayaashii aan eegno. midda koowaad aan ka hadalna waxa weyaan xadiidka mudrajka ah. xadiidka mudrajka ah waxaan nidhi asal ahaan mudraj waxaa looga jeedaa wax la isdhexgeliyey. waxayna markii ay isdhexgalkaas yimaado, ama matniga ha ku yimaado ama isnaadka ha ku yimaadee, waxay ina tusinaysa hubsasho la'aan, sugnaanshihii oo dhaawac uu soo gaadhay, iyo ka fiirsi la'aan warkii suu ku imanayo. wax dheeraada hadday soo galaan, waxay imanaysaa warkii in aan si sugan oo ka fiirsi leh uusan inagu soo gaarin marmarka qaarkood. haddii uu weriyuhu bedelo habkii uu isnaadku ku socday, waxaynu nidhi waa mudrajul isnaad. hadduu dad ku daro isnaadkii dheeraada, mudrajul isnaad ayuu noqonaya. sidee bay ku imanaysaa marka inay dhacaan? waxaa imani karta marmarka qaarkood, culimmadana xadiidka imaam bukhaari uu sameeyo, waxaa dhacda xadiidkii asaaniid badan in lagu soo wariyo. marka sheekhi isagoo xadiidkii warinaya inuu asaaniiddii intuu isu keeno hal mar ku wada wariyo xadiidkii. sidaa awgeed asaaniid kala duwan waa xadiis saxiixa, asaaniiddiisu ay sugan yihiin. marka culimmada qaar baa lagu yaqaan xadiidka intay isu keenaan isu soo ururiyaan in ay sidii hal xadiis isagoo ah ay u soo wariyaan iyagoo wax u daliishanaya. taas dhibaato male, waayo xadiidku waa xadiis sugan, dadka soo wariyay oo dad la yaqaano, warkooda uu sugan yahay. marka kan waa qaab daliishi oo xadiidkii loo isticmaalayo. laakiin werintii asalka ahayd kuma jirto. marka iyadoo dad kala badan ay xadiidkii asaaniid kala duwan ku soo wariyeen, in inta la isku soo ururiyo xadiidkii iyo qaybihiisa oo dhan hal xadiis ahaan loo wariyo, taas way keenaysaa inuu mudrajul isnaad uu saa ku noqdo. xadiisyadii laisu keeno, warkii oo marka laisu soo koobay oo hal meel ku yimid ayuu noqonaya. isdhexgelinta matniga, mudrajul matni markuu yahay, waxay ku iman kartaa dhowr siyaabood. xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadoo la werinayo, in ereyadii aan hadda nidhi waa ghariib alxadiis, ereyada laga yaabo dadka qaar inaysan fahmaynin, iyada oo sheekhi uu sharxayo, in hadalkii uu ku sharxay ereygaas in loo qaato inuu xadiidkii qayb ka yahay, sidaa awgeedna lasoo dhexgeliyo. waxaa iyadana ku imaanaysaa saxaabi isagoo xadiis nabiga sala allahu alay wasalam ka warinaya, in hadalkiisa qayb ka mida dadkii qaar ay ku daraan xadiidkii iyagoo u fahmay inay xadiidka ka mid tahay. waxaa jira xadiis abu hureyra laga soo warinayo oo uu leeyahay, uu ka hadlayo weysada iyo sida ay u tahay in loo dhammaystiro asbiqu lwuduu. xadiidkaas qayb ka mida oo hadalkii abu hureyre ah iyo dadkii ka warinayay qaarkood ay xadiidkii intay raaciyeen ay moodeen inuu yahay hadalkii nebiga sala allahu calayh wasalam inuu yahay. tusaalaha halkan aan ku hayna waxa weeyaan, nebiga xadiidka waxyigu siduu ku bilowday. nebiga sala allahu alay wasalam markuu qaar xiro joogay ee uu jibriil habeenkii u yimid, xadiidkaas caaisha radi allahu tacaala markii ay warinayso, ayaa xadiidka waxaa ku jira wakaana yakhluu bigaari xira fayataxanasu fiihi. fayataxanas waa erey fasiraad u baahan dadka qaarkood aysan fahmaynin. marka sheekhii xadiidka warinaya ayaa fasiray, wuxuu yihi wahuwa tacabud. fayataxanasu fiihi macnaheedu waxa weeyaan wahuwa tacabud, uu ku cibaadaysanayay meeshii nebiga sal slam gaar xiro wuxuu u joogay, halkaasuu ku cibaadaysanayey allayaali dawaati alcadad, habeeno tiro ah ayuu halkaa ku cibaadaysan jiray nebigu sal slam. wahuwa tacabud kama mid aha xadiidka.
xadiidka asalkiisii wuxuu ahaa wakaana yakhluu bigaari xiraa fayataxanasu fiihi allayaali dawaati alcadad. ereygan marka labadan erey wahuwa tacabud waa fasiraad uu ku daray imaamu zuhri oo markii dadkii kale werinayay xadiidka caaisha ka soo wariyey jidadkii kale la eegay waxaa soo baxday wahuwa tacabud in aysan ku jirin keli ku tahay imaamu zuhri meesha uu ku warinayo. marka wahuwa tacabudkaas waxaan leenahay waa mudrajulmatn, waa wax dheeraad ah oo lasoo dhexgeliyey matnigii xadiidka oo ah fasiraad. iyaduna waxaa kale oo jirta in sheekhi isagoo xadiidkii werinaya oo dadka u sheegaya wax soo dhex galaan, hadal ka soo dhex galo xadiidka uu yeedhinayay ee ardadu ay qoranayeen. hadalkii ka soo dhex galay dadka aan ku baraarugsanayn waxaa laga yaabaa inay u qaataan inay isla xadiidkii ka mid tahay oo ay qortaan. tusaale waxaa inoogu jira xadiidkan halkan tusaalaha ku jira waxa weeyaan waxaa sheekha xadiidkii akhrinayey isagoo xadiidkii akhrinayay sheekh wuxuu leeyahay sheekhuna waxa weeyaan shariik ibn cabdalla alqaadi isagoo xadiidkii werinaya ayaa waxaa u soo galay nin baa u soo galay. ninkii u soo galay buu markaa rabaa inuu hadal ku yidhaahdo sheekhu. sheekhuna xadiidkii buu werinayaa walmustamli bayna yadayhi qofkii ka qoranayay baa hor fadhiya. qofkii xadiidka ka qoranaya sheekha ayaa hor fadhiya. marka sheekh wuxuu leeyahay xadathana alacmashu can abi sufyaana can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam walam yadkur ilmatn. sanadkii markuu dareeriyey qofkii ka qoranayana uu hor fadhiyo xadiidkii uu qoranayo, sheekhii isagoon xadiidkii sheegin ee sanadkii keliya sheegay ayaa ninkii u soo galay buu rabaa inuu hadal ku yidhaahdo. waxay tahay in laga digtoonaado oo aan la samaynin. laakiin sida ay culimmadu tilmaamay waxay leeyihiin sheekhan shariik ibn cabdalla alqaadi kaana mazaaxan, waa nin kaftan badan. ninuu usoo galay ninkii buu rabaa inuu hadal yaro kaftan uu ku yiraahdo isagoo haddana ammaanayo nin zuhdi iyo warac lagu ogyahay buu ahaa. marka wuxuu ku yidhi man kathurat salaatuhu billeyli xasuna wajhuhu binnahaar. ninkaasuu rabaa inuu la hadlo oo hadal ammaana ku yiraahdo, sanadkii xadiidkana wuu sheegay. marka qofkii xadiidka warkan sidan u maqlay ayaa wuxuu sameeyey mustamligan warka ka qaadanayo ayaa xadiidkii wuxuu ku werinaya xadathana alacmashu can abi sufyaana can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam man kathurat salaatuhu billeyl xasuna wajhuhu binnahaar. qofkii salaadiisu ay habeenkii badato wejigiisa maalintii wanaagsanaado dhalaalo qurux badnaado. xadiidna may ahayn, sheekhu xadiid kaluu sheegayey xoogay maadaamuu rabay ninka inuu la kaaftamo labadii baa isdhex galay. qofkii xadiidka ka qoranayana kuma uusan baraarugine sidii intuu u qaatay uu kusii wariyey. taasa waxay keentay marka dhibaato ah in xadiidkii wuxuu noqonayaa mawduuc xadiidan jirin ayaa meeshii ka dhashay, laakiin sababteedii waa la ogyahay. marka wuxuu noqonayaa aan leenahay dhibaatooyinka ay leedahay in marka xadiidka nabiga sal ly slam la werinayo hadallo kale lasoo dhexgeliyo si aysan dadku ugu khaldamin. marka xitaa hadda marka dadka wacdiga la wacdinayo wax loo sheegayo xadiid nabiga sal alla alay salam marka la sheegayo waxa fiican in gaarkiisa loo sheego si hadaladii kale ee dadku aysan ugu dhex qasmin, qofkuna uusan u arkin warkaas inuu yahay war nabiga sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey. waa in laga digtoonaado ayay u baahan tahay. wayna siyaabaha lagu ogaan kara marka mudrajka waxaa ka mid ah in isbarbardhig lagu sameeyo sida aan ku ogaanay wa huwa tacabud inay mudraj tahay oo zuhri uu fasirayo ereyga fayataxanath. markaan eegno jidadkii kale oo ku yimid saas laguma warinin ee jidka zuhri keliya ayuu sidan ugu yimid ayay culimmadu yidhaahdeen. waxaa kaloo iyadana lagu ogaan karaa in waryuhu inoo caddeeyaba inuu sheego in intani ay tahay mudraj aysan ka mid ahayn xadiidkii asalka ahaa ayaa idan lagu ogaan karaa. waxaa lagu ogaan karaa inuu yahay hadal uusan nebigu sala allahu alay slam odhan karinba. hadal hadduu ku soo biiro nebiga sal slam uusan ka suurtoobaynin inuu hadalka yidhi idan waxaa leeyahay warkan meel kaluu ka yimid ee maaha hadal nebigu sala allahu alay salam uu yidhi. xadiis baa jira abu hureyra ayaa rajeynaya inuu ahaa wariyu leeyahay haddii aanan sidaasaan samayn lahaa haddii aanan door bidayn inaan
noqdo hooyaday adeegeeda iyo u baari noqoshadeeda haddaysan xidhaynin sidaas iyo sidaasan samayn lahaa. Nebigu sala allahu alay wasalam ma odhan karo hadalkaas, waayo hooyadii intuusan nebi noqoninba isagoo yar ayay geeriyootay. Marka taas waxaan leenahay nebigu sal ly salam intan ma odhan karo, waayo hooyadii maba jooginba xilligan. hadalka ma odhan karo. Hadalkii Abu Hurayra ayaa mudraj ahaan usoo dhex galay xadiiskii nebiga sala allahu alayhi wasalam. qaybta kale uu sheekhu inoo sheegay waxa weeyaan xadiidka maqluubka ah. xadiis maqluub noqday, qallimay, waxbaa isdaba maray. Marka xadiidkan maqluubka tusaale ahaan haddii ay isnaadkii gasho, qalbiga iyo kala rogiddu haddii ay isnaadkii gasho, waxaa ka mid ah tusaale ahaan qof magaciisu ahaa Murra ibnu Kacab, in inta magacii la kala wareejiyo la yihahdo Kacab ibnu Murra, taasoo kale loo soo wariyo. Okay. Magacii ayaa qaybtii hore iyo qaybtii qofka magacii aabihii iyo magaciisii baa isdaba maraya, tusaale ahaan saasay noqon kartaa. waxaa kaloo iman karta ereyadiiba xitaa inuu galo. xadiis nabiga sala allahu alay salam laga soo wariyey ee ahaa toddobada qof maalinta qiyaamaha harka alla subxana wa tacaala harsan doona, waxaa ka mid a qof sadaqa bixiyey xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu, ilaa iyo bidixdiisu aysan ogaanin. qofkan siduu sadaqadiisa u qarinayo wuxuu gaarsiisan yahay heer bidixdiisu aysan ogeyn waxa ay midigtiisu bixisay. taas xadiidka ay culimmadu ku soo wariyeen, laakiin sida imaam Maalik, Bukhaari iyo imaamyada kale ay ku soo wariyeen. laakiin imaam Muslim markuu xadiidka soo warinayey waxa istaba maray midig iyo bidixdii baa istaba maray. qalb baa ku yimid, istabamar baa yimid, waxayna noqotay xataa laa taclama yamiinuhu, ilaa aysan midigtiisu ogaanin maa tunfiqu shimaaluhu, waxa ay bidixdiisu bixinayso. caadi ahaan wax bixinta midigta wax lagu bixiya. marka midigtii wax lagu bixinaya xadiidkan hadalkiiba isdaba maray, waxay noqotay xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu. waxaan leenahay maqluub weeyaan, warkan uu isdaba maray. sida saxda ahi waxa weeyaan xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu. waxyaalahan dhan waxaan ku ogaanaynaa markii aqoon badan xadiidka loo yeesho, ee dabagal lagu sameeyo, dariiqyadii xadiidka lasoo ururiyo, markaasaa la ogaanaya meeshii khalad ku jiro iyo sida saxda ah, iyo qofkii mukhaalafo la yimid ee dadka kale ku khilaafay. waxaasoo dhan markaas imanaysaa. marka in xadiisyadii asaaniiddooda la ururiyo oo la isu keeno oo la barto oo la xifdiyo, saasay culimmadu ay ku keeneen inay waxyaalahan oo dhan aqoon dhan ay ka soo saaraan meeshii, oo ay xadiisyadii ku ilaaliyaan si loo ogaado maxaa saxa iyo maxaan sax ahayn. marka xadiiska maqluubkaani waa sidaas, ama magacyadii baa istaba maraya, ama matnigii xadiiska ayaa ereyada qaar ay istaba marayaan. kan wuxuu ku yimid markaa ma aha sida culimada qaar ay sheegayaan inuu imaam Muslim inuu isagu xadiiska sidan u wariyey ma aha. hadda waxaan soo tilmaamaynay sheekh isagoo xadiidkii warinaya in nin u soo galay oo uu hadal ku yidhi, kadibna qofkii xadiidka ka qoranayey ayaa hadalkii sheekha iyo xadiidkii intuu kala saari kari waayey labadii madaxa isu geliyey. sidoo kale waxaa leeyahay kan sababta ay ku timid waxa weeyaan dadka imaam Muslim xadiidka ka qortay ee ka qaatay midkood ayuu khaladkani ka dhacay. oo culimadu waxay samaynayeen, hadda dee waxaan haynaa sheekh kitaab buu qoraya, kitaabkii madbacad baa la geynaya, madbacaddii baa daabacaysa, kabacdina qof walba kitaabkii nuskhadiisu ku helay, xabadiisu qaadanaya. laakiin marka waxaa ahayd sheekhu kitaabkiisii buu haystaa, ama ama isagoo xifdisan buu xadiidtii u yeedhinaya, ardayda bay ka qoranaysaa sidaynu malcaamadda qur-aanka kusoo baran jirnay, ama kitaabkiiba u furan uu akhrinaya, ardayduna way qoranaysaa. marka mid walba tiisuu qoranaya. sidaa awgeed waxaa imanaysa inaynu aragno xadiisyada xitaa saxiixul bukhaariga in ay jiraan riwaayaad kala duwan, oo ardaydii imaam bukhaari xadiidka ka qaatay ee sii wariyey ee dadku ka sii qaateen, inuu midba si usii warinayo. ilan ma hayno asalkii bukhaari oo qoran oo isagu gacantiisa ku qoray, wixii dadku ay ka soo qorteen ay sii kala wariyeen ayaynu haynaa. sida loo saxayo iyo sida ay tahay in loo dhowro iyo waxyaalihii culimmadu samayn jireen dib baan ka arki doonaa insha allahu tacala. waxaa jira wax la yihahdo muqaabala, markuu ardayga qorto inuu dadka kale la eego, adiguna maxaad qoratay, laysu eego, laysbarbar dhigo. kadib markay dhammaystaan sheekhi intuu u tagan kitaabkii sheekha, inay mar labaad ay barbar dhigaan, ay ku celiyaan oo wixii laga saxo, ilaa halkan waan isla saxnay. waa in tifaftir iyo dib ugu noqosho ayaa imanaysa. laakiin marka qaar waxaa laga yaaba qofku intuu wixii qortay inuu iskaba tegey uu sidaa kusii wariyey.
marka khaladku halkaasuu ka imanaya ayuu leeyahay alqaadi ciyaad, wuxuu leeyahay qof ayaa sheekh imaam muslim intuu ka qortay labada erey ay iska daba mareen, halkaasuu khaladku ka yimid. marka isdabamarinta gefka ku timid iyadu dhibaato weyn ma laha, ee qofka haddii ay kasoo noqnoqoto waxay dhaawacaysaa dabdigii iyo sugitaankii warka ee laga doonayay. dumarba ereyadii uu isku wada dhex qasaya uusan kala saari karaynin, waxaa dhici karta inuu wax xalaala xaraam ka dhigo, wax xaraam ahana wax xalaal ka dhigo. taas waxay keenaysaa warkii in aan lagu kalsoonaan karin, dabdigii ayaa dhaawac noqonaya, ka tacni bidabt ayaa wariyihii ku imanaya. waxaanu uu sheekhu inoo soo sheegay in qalbiga xadiidka maqluub laga dhigo in imtixaan ahaan u iman karto. waxaa jirta culimo badan oo xadiidka sida imaam bukhaari markii uu eh, soo shacbaxo leeyahay nin maxamed ibn ismaaciil la yiraahdo ayaa soo baxay oo xadiidka aad eh, ugu xeel dheer oo aqoon badan u leh. baqdaad markuu tegey ayaa culimadii inta golo loo sameeyey ayaa layidhi, ninka hal imtixaamo bal aqoontiisa aan eegno. baqdaadna waa caasimadii muslimiinta, culimadii oo dhan baa joogta. waxay sameeyeen marka xadiisyo badan bay soo qaadeen, asaaniiddii bay isku dhex qaseen wixii oo dhan. marka waxaa la yidhi haye xadiidkan ka waran. xadiisyadii buu dhegeystay, dadkii oo dhan waxaa umaya boqol xadiis oo qofo toban u sheegayo, mid walba wuu dhegeystay markay dhammeeyeen buu ugu soo celiyey xadiis walba sidii saxda ahayd ee uu ahaa, sidii khaldaneed ay u sheegeen, wixii oo dhan buu dib ugu soo celiyey. xitaa intii khaldanayd ay sheegeen, intii sax ahayd keliya muu sheegin, kuwii khaldanaa iyo sidii saxda ahayd ee ahayd inay u dhigaan wixii oo dhan buu ugu soo celiyey. waxaa kaloo ka mid a culimada saas loo imtixaamay cuqayli, daaraqudni iyo culimo kaleba. marka imtixaan ahaan iyadu waa baab kale oo dee ardayga marka la imtixaamayo waxyaalihii waa lasu dhexgelin karaa si loo ogaado inuu kala saari karo. culimadiina waa sidoo kale haddii la yihahdo sheekh cusub baa magaaladii yimid, sheekhii in si loo imtixaamo aqoontiisa loo eego waa la samayn karaa, waa lasugu dhex qasi karaa inuu kala ogo. laakiin si camdi ah oo imtixaan ka baxsan in axaadiistii laisku dhex qaso wax saxa maaha. waxay noqonaysaa in been abuur nabiga sala alla alay wasalam laga samaynayo. sidoo kale waxay noqonaysaa inuu mawduuc meeshii noqdo, war aan jirin baa samaysmay, sida awgeed xadiidkaasi mawduuc ayuu noqonaya. haddii xadiidkaas ereyada aan u isticmaali karno oon ku tilmaami karno marka maqluub yahay, waxaan leenahay xadiidkan cillad buu leeyahay, cillad baa ku jirta. tusaale ahaan maxaynu nidhi magacyadu hadday isdaba maraan oo mura ibnu kacab iyo kacab ibni mura, waxaan leenahay xadiidkan cillad baa ku jirta oo magacan maqluub weeyaan, waxbaa ka khaldan. ereyga cillada aynu hore usoo tilmaanay waxyaalaha uu tilmaamay waxaa ka mid a sidan oo kale in isdabamarin ay xadiidka uu ku jirto, waa cillad xadiidkaas lagu daciifin karo. in ereyadiisii sida laa taclamu yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu waa cillad xadiidka ku timid. cilladaas marka dabagalkii marka la eego waxaa imanaysa in ay ku kooban tahay meelo gaar ah oo laga yaabo dadka kale xadiidka warinayay in aysan sidaas u warinin. inta markaan ka sugno waxaa kale uu sheekhu inoo sheegay xadiidkii haddii dad dheeraada sanadkii lagu daro in uu noqonayo almasiid fi muttasil alasaniid. sanad xiriirsan ayuu dad dheeraada ku daray oo mukhaalaf u la yimid wariyihii, dabdigiisi iyaduna ayay dhaawacaysaa, ay dhibaato u keenaysaa. marka wuxuu leeyahay tusaale haddaan soo qaadano xadiidkan laa tajlisuu cala alqubuur walaa tusalluu ilayha, qubuurta ha ku fadhiisanina, dhankeedana ha tukanina, yani qiblada idinka xigin markaad tukanaysaan. xadiidkan wuxuu ku imanayaa عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد حريرسا وأن كلا قونين وحد باتا ملها كما متصل الأسانيد إسناد حريرسا ويان. لكن ورين كلو حاجة الديارات كل دريسة هكا المزيد ماشي كيما نسوي قف ديارات أبو ماشي لسود حكي الله وصو مقيقي. لكن بسر ابن عبيد الله وكان فهل كيبان شوقنا عن واثلة بسر wuxuu ka warinayay waathila ibn al-asqacna waa kan soo dhex galay can abi idriis alkhawlaani. abu idriis alkhawlaani waa dheeraad buu ku yahay meesha, waayo xadiidka waxaa jira waxaa lagu soo warinaya busr oo leh waxaan ka maqlay waathila ibn al-asqac. haddii uusan sidaa odhan lahayn waxaa dhici kari lahayd inay meeshan uu ninkan sax ugu jiro, laakiin maadaama uu noo sheegay inuu warkii ka maqlay ognahay in abu idriis alkhawlaani inuu meesha khalad ugu jiro, dheeraad uu ku yahay.
okay. Isnaadka sidan oo kale ah magaca culimadu u bixiyeen sida kuwa kale uga saaran waxa weeyaan almasiid fi muttasil asaniid. Isnaad xiriirsan oo dhammaystiran ayuu dheeraad ku yahay. labadan xadiidba waxaa diiwaan geliyey oo ku jiraan imaam muslim raximah llah tacaala, kitaabkiisa saxiix muslim ayay ku jiraan. abu daawuud ayaa isna werinaya xadiidkan, waxaana ku cad in muslim ibnu cubaydillah uu si cad u leeyahay, wuxuu leeyahay samictu, waxaan ka maqlay waathida ibn asqac. marka hadduu ka maqlay, waan hubnaa in ay tani tahay dheeraad. haddii kale uusan sida odhan lahayn, waxay noo furnaan lahayd in la yidhaahdo sabab baa jirta. waxaa laga yaabaa inuu mar ka booday oo uusan sheegin, ama irsaal uu sameeyey, ama inqitaac iyo kala go uu sanadka soo galay, abu idriisna uu meesha boos ku leeyahay. laakiin maadaama uu inoo sheegay samaac inuu ka maqlay, waxaan si yaqiinsanayna aan hubnaa in abu idriis alkhawlaani meesha uu dheeraad ku yahay. sida awgeedna uu xadiidkii noqonayo المزيد في متصل الأسانيد كمخالفة مدرجكي مدرج الإسناد يا مدرج المتن. إسنادكي wax lagu daro ama matniga wax lagu daro. maqluubkii oo ah ama magacyadii ruwaadda xadiidka soo warinayay ayaa qofka magaciisi iyo magacii aabihii baa istaba maray tusaale ahaan. ama waxaa jirta in matnigii ay istaba mar ku yimaado oo yemiin iyo shimaal ay istaba maraan tusaale ahaan. waxaan kaloo inoogu xigta oo inoo sheegay haddii ay mukhaalafa jirto, wuxuu nagu yidhi aw biibdaalihi walaa murajax. wariyihii mutasil almasiid fi mutasil alasaniid qof dheeraada lagu daray. laakiin haddii dadkii la kala bedelo, idriis alkhawlaani meeshuu ku jiray ee uu u dhexeeyey busri ibnu cubaydillah iyo waathil ibnu asqac, haddii busri ibnu cubaydillah meesha inta laga saaro la bedelo oo abudriis alkhawlaani lasoo geliyo, marka intaan mid ku dari lahayn midba meeshii ka bedelnay. isnaadkii saas haddaan mid ku hayno, mid kalena uu si kale uu yahay, uu kan ka duwan yahay, labadii isnaadna wax aan ku kala saarno, ku kala rajaxno aan weynay, waxaan leenahay xadiidkan waa mudarib. aw biibdaalihi walaa murajax falmudarib. mudaribki marka wuxuu noqonayaa wuu isku qasan yahay, qaab loo kala habeeyo oo loo kala hagaajiyona ma garanayno. haddaan dadaalkii intii awood lahayo culimadii bixiyaan ay kala saari waayaan, waxay noqonaysaa xadiidkan waa mudarib, halkan inaga dhiga daciif buu sidaa ku noqonaya. laakiin waxaa dhici karta xadiidka mudarib lagu sheegay in culimo kale ay u jid bixiyaan, ay u helaan qaab loo xali, sida macnihiiba xadiidan kasoo hadlaynay mukhtalifu xadiidka ahaa, culimadu qaar ay kala saari waayaan, ha dhacda in kuwo kale ay u jid bixiyaan oo macnihii labada xadiis ay kala saaran, ama yirahdaan kani waa naasikh, kana mansuukha, kani waa sidan, kani waxaan ka hadlaya, kani waa caam, kani waa khaas, ay si uun ay u fasiraan oo ay u kala saaraan labadii xadiis. marka waxaa jira tusaale ahaan xadiisyo asaaniid badan lagu soo wariyey, asaaniiddaasna si loo kala saaro kooda saxda aan lahaynin. tusaale ahaan xadiidkan haddaynu eegno, waxaa jira taabiciga abu isxaaq asabiici, xadiis laga soo warinayo nabiga sala allahu caleyh wasalam. abubakar ayaa wuxuu ku arkay ciro, ayuu timihiisa ku arkay, markaasuu yidhi maxaa kugu dhacay, waad ciraysatay, maxaa dhacay? nabigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku yidhi shayabatnii huud wa akhawaatuha. huud iyo walaalaheed waa suuradda huud, alwaaqica, almursalaat, suurat naba, suurat ida shamsu kuwirat. huud iyo walaalaheed baa ciro iga soo saaray, ayuu nebigu sal lla slam. xadiidka saas ayaa looga soo warinayaa saxaabigii taabicigii abu isxaaq asabiici. isnaadkiisana laakiin waa laisku khilaafsan yahay. isnaadkiisa waxaa ku jira idiraab, waa mudarib. ilaa iyo intan oo dhan ayaa lagu soo wariyay. marmarka qaar waxaa dhacaysa abubakar iyadoo laga soo warinaya xadiidka inta badan, in dadka qaar ay ka soo warinayaan can abilaxwas, can ibni mascuudna qaar kale ka soo warinayaan, oo ay abubakarba meesha ka saarayaan. marka intan oo isna hadda u fiirso, waxaa laga soo warinaya can abi isxaaq asabiici, can abi juxayfa, can abi bakr. haddana waxa weyaan can abi isxaaq asabiici, can ilbara, can abi bakr. canhudan waxaan gelinaynaa abi isxaaq asabiici, inta kalena si isu bedelaysa aag. isxaaq asabiici, bara, أبو جحيفة، أبو ميسرة، مسروق. مسروق
haddana caaisha, haddana abubakar, abu isxaaq asabiici, calqama, abubakar, si isu badbedelay, si loo kala saaro oo idiraabka looga saarana lama hayo. taas waxay keenaysaa marka in la yihahdo xadiidkan markaan kala saari weyno waxaan leenahay waa mudarib. mudaribnimadu marka isku qasnaantaas aan xalka loo haynin ayay tilmaamaysaa. sheekhuna markuu qeybtan sharxaya wuxuu leeyahay badanaa siday u badan tahay idiraabku wuxuu ku dhacaa sanadka. oo sidan la isugu khilaafay isnaadka saxda ee xadiidkan uu leeyahay ayay badanaa ku dhacdaa isnaadka inay ku joogto. matniga kuma badna, marmarka qaar way ku imanaysaa, laakiin غالبا isnaadkay ku timaadaa ayuu ina leeyahay. marmarka qaar waxaa dhacaysa in culimada qaar ay ku tilmaamaan xadiidku inuu mudarib yahay, laakiin kuwo kale ay u jeed bixiyaan sidaan soo sheegnay. xadiisyada markaa mudaribka hadda tusaale ahaan haddaan eegno kitaabka buluugul maraamka, xadiisyada ku jira qaarkood mudaribka lagu tilmaamay waxaa ka mid a xadiidkan xadiidkan ku saabsan maalinta sabtida in la soomo. marar badan baan aragnaa hadda sabtidii waxaa kusoo beegmay maalintii cashuura la soomayey. dad badan baa ka doodaya maalin sabtida keligeed ma la soomi karaa. xadiidkan sababtan waxa weeyaan xadiidkan leh laa tasuumuu yowma asabt ilaa fiima fturida calaykum. maalinta sabtida inaan ha soomina wixii laydinku faral yeelay mooyaane. fain lam yajid axadukum ilaa lixaa cinab, maydhaxda cinabka waxaan ahayn haddaad weydid, ama geed laantii wuxuun afa gasho calaali, wuxuun ha soomin uun maalintaas. marka wuxuu leeyahay ibnu xajar buluuqul maraamka sidaan ognahay ibnu xajar baa qoray sheekha nuqbatulfikirka qoray. wuxuu leeyahay rawaahu lkhamsa wa rijaaluhu hiqaat. dadka xadiidkan soo wariyay waa dad hiqaat ah, ila anahu mutarib, waa mutarib xadiidkan. waqad ankarahu maalik, imaam maalik xadiidkan wuxuu ku sheegay inuu yahay munkar. abu daawuudna wuxuu yidhi huwa mansuukh. culimadii siyaabo kala duwan u tilmaamay. culimada marka waxaa jira qaar sameeyey in ay xadiidkan ka saaraan idiraabkan lagu eedeeyey, inay fasiraan oo ay u jid bixiyaan. qaarna waxay leeyihiin waa mansuukhba gebigiisa, meesha waan ka saarin. xadiid kale waxaa jira in aabbuhu hadduu wiil ilmihiisa dilo aan loo qisaasaynin. xadiidkaasna culimada waxay leeyihiin waxaa ku jira idiraab. markii culimada sidan xadiidka isugu khilaafaan sida hore usoo tilmaanay, ereyadan layskama sheegayo ee natiija ka dhalanaysa. natiijada ka dhalanaysa waxaa weeyaan xukunka fiqiga aan ka qaadanayna muxuu yahay. oo xadiidkan hadduu mudarib yahay maalinta sabti waa la soomi karaa, de maxaa dhibaato ku jirta marka. culimo kale waxay leeyihin may lama soomi karo, waayo xadiidkana sheegaya. xadiidkuna mudarib maaha, waanu fasiri karnaa, idiraabka waan ka saari karnaa, jidbixin baan u samayn karnaa. sidoo kale xadiidkan ah aabbuhu hadduu ilmihiisa dilo ma loo dilaya ma loo qisaasaya. culimada qaar waxay leeyihiin may, qaarna waxay leeyihiin xadiidku hadduu mudarib yahay sidee u deliishan karnaa, ila xadiidka saa kuma sugna. imaamu shaafici raximahullah taala masalada mukaale wuxuu leeyahay culimo badan waxaan ka soo gaadhay in aabbuhu hadduu ilmihiisa dilo aan loo qisaasaynin. marka xadiidkii haddaanba mudaribkiisa halkan dhigno, culimadii warkoodii iyo wixii ay kala qaateen kala wariyeen ilaa xilliga hore ayaynu haynaa, oo ah in aan qisaas meeshii soo gelaynin, waynanu ka soo haray. marka haddaynu eegno xadiidkan idiraabkiisa, sababta mudaribka dhibaato u keenaysa maxay tahay. ibnu ibnu xajar raximahullah tacaala kitaabkiisa kale oo xadiidta fiqiga ku ururiyey ee la yihahdo atalkhiis alxabiir, kitaabka weyn ee imaamu raafici xadiidta daliiladii xadiisyadii daliilka uu ahaa ayuu kusoo ururiyey. markuu xadiidkan ka hadlayo sabtida yaan la soomin, wuxuu leeyahay hada xadiiث mudarib. xadiidka mudarib maxaa ka dhigay? ninka soo werinaya xadiidka kor haddaan ugu noqono, asamaa bint busr baa soo werinaysa radia allahu canha. waxaa ka soo werinaya samaa, waxaa ka soo werinaya walaalkeed cabdilaahi bni busr ayaa ka soo werinaya. marka qaarkood walaashii kuma jirto sanadka, waa laga boodaya, marna iyadaa laga soo werinaya. waa mid. mar kalena waxaa jirta aabbihii ayuu ka soo warinaya. marba sibaa loo soo warinaya warkii. maadaama uusan meel ku xasiloonayn oo si sugan aan loo soo warinin, wuxuu leeyahay ibnu xajar
لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتخاذ المخرج، وهل حديث وكليجي وهل إسناد كيمد، هل عدبونا كيمد وحان هاي وحكا إيمانيا صحابية حديث كسورس صما بنت بصر. مادام حديثك هل كان ميل وكيمد، هل إسناد وكيمد، وهل حديثنا يهي إن ساس خلاف كاس وصودح قال ولا كلا جرن وايو شدكيس الصحراء كو يهي ويوهن راويه عدة سورس أي دعوة عيسى وينبئ بقلة ضبطه وحين إنه شيء وإنه إن تصينيسا إن قف كان ضبط جيسا وسيدو قابك وورك أصوغو إن أي تهي مدليدة توهوسيسا. marka halka dhibaatada meesha ka imaan haddii uu yahay qofkan xadiis mudtarib uu soo warinaya, macnihiisu waxa weeyaan qofkan warka uu soo warinayo war sugan oo si la hubo oo xasiloon loo soo wariyey ma aha. Waa war ma Cabdillaahi bin Busra walaashii ka soo wariyey mise walaashiiba toos looga soo wariyey mise aabihiiba meesha ku jira mise cid kale ku jirta, wixii waa isku dhex qasan yihiin lamana kala saarin. taas waxay keenaysaa dhibaato in la yihahdo xadiidkan dhibaata halkaasay kasoo galaysa. marka wuxuu leeyahay qofkii wariyey meesha dhibaatada uga imanayso mukhaalafadaas weeyaan, iyo in aan warkii sugnayn oo dabdigiisii uu dhaawac ku imanayo. xadiidka kale aan tilmaamnayna waa kan oo ah laa yuqtalu lwaalidu bilwalad, aabihii looma dilayo wiilkiisa. xadiidkan waxaa ku jira buu leeyahay waisnaaduhu daciif wa fiihi idiraab. xadiidkan isnaadkiisu waa daciif waxaana idiraab baa ku jira, waa mudarib, waayo jidka lagu soo wariyey ayaa la isku khilaafsan yahay. waana jidkiina waa kan faahfaahintiisana ma sii gelayn insha allahu tacaala. xadiidka markuu buluuqul maraamka ku wari haddaad aan ku aragno waxa uu u soo warinaya sidan waxaan cumar bn الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. aabaha looma qisaaso ilmihiisa. wuxuu leeyahy وقال الترمذي إمام الترمذي wuxuu leeyahy إنه مضطرب. xadiidkani waa مضطرب. mudaribnimada waxa weeyaan oo uga imanaysa jidka lagu soo wariyey iyo qaabka aan uusan u xasiloonayn cidba si ay ugu sheegtay. laakiin markay noqoto masale ahaan waa masalo sida imaam shaafici la soo xigtay waqaala xafidtu min cadadi can cadadi min ahli ilcilmi laqiituhum anlaa yuqtala alwaalidu bilwalad. culimo badan oo aan la kulmay waxaan ka xifdiyey inaan aabbaha loo qisaasin wiilkiisa wabidaalika aquul aniguna saasaan leeyahay. iyadoo xadiidkii hadal ka taagan yahay haddana masale ahaan aabihii looma qisaasayo waayo xadiidkan keliya kuma salaysna culimadii uu ka soo gaaray imaamku ayuu inoo sheegaya raximah llahu tacaala. marka waa masalo asal leh ee aan layska odhanayn. waayo intaa markaan kaga baxno xadiidkii mudaribka ahaa. xadiidka mudaribka ah waa xadiis ay eh, isku qasan oo ciddii soo warisay ama isnaadkii lagu soo wariyey aan laysku raacsanayn ee siyaabo kala duwan oo aan la kala saari karin ku yimid. haddii siyaabaha kala duwan la xallin karo oo loo jid bixin karo mudaribnimadii waa laga saari karaa waa la fasiri karaa. xadiisyo kaloo saasoo kale jira mudaribnimo lagu tilmaamay haddana culimmadu ay fasireen oo ay u jid bixiyeen oo ay ka saareen. xadiis waxaa jira mudaribnimo lagu sheego oo ka hadlaya sutrada. haddaad tukanaysid oodan sutro haysanin xariiq hortaada ku xariiq ciidda si ay sutro kugu noqoto. kaasina wuu jira. midda kale mukhaalafada ku imanaysa wuxuu yidhi waa marka iyadoo qoraalkii uu sidiisii yahay uu yimaado khalad ah in dhibcihii ay isbedeleen. marka haddii ereygii oo sidiisi u qoran oos waxba iska bedelin laakiin dhibcihii ay khaldamaan oo meeshii xa'da ahayd kha ama jiim laga dhigo ama meeshii siinka ahayd shiin laga dhigo waxaan leenahay warkan waa musaxaf tasxiif baa galay, khalad higaadeed ayaa galay warkan. sidoo kale haddii xarakadii isbedesho meel kor dhignayd la hoos dhigo ama meel hoos dhignayd la kor dhigo iyo wixii la mida waxaan leenahay isna waa muxaraf. labadan erey musaxaf iyo muxaraf intaasay fasirayaan. oo in tusaale ahaan waxaa jirta qiso la sheego ah xadiidka nabiga sal ly slam uu ka hadlayay xabatu sawdaa. xadiidkaas inuu nin maqlay uu u akhriyey si khaldan buu u akhriyey wuxuu u akhriyey alxayatu sawdaa. waxaaba tusaale inoogu filan in xitaa qoraalkayga halkan uu u qoran yahay
xabatu sawdaa inaan labadiiba si isku si u qoray. marka way fududahay in khalad taas oo kale ah uu geli karo meesha uu geli karo. hadda waa aniga saxay. marka xabatu sawdaa meeshii ba'dii iyo ya'dii hal dhibic uma udhexaysa. qofkii marka khaladkii ka galay wuxuu ahaa in meeshii halka dhibic ahayd ba'da ahayd inuu laba dhibcood intuu u qortay uu ya ka dhigay, kabacdina si isu daweeyey abeese madow intuu soo qaatay uu sidii ku haleemay. macnihii xadiidku isbedeli karaa. dadkii sanadka xadiidka ku jiray haddii magacyadoodii uu tasxiif soo galo oo kala bedelmo, iyadana dhibaata ka iman karto. waxaa laga yaaba qof la garanay in la garan waayi karo, ama qof aan la aqoonin oo majhuul ahaa haddii la bedelo inuu qof kale u ekaado uu saa ku khaldamo. marka in iyadana laga digtoonaado. waxaan sheegnay marka xadiidka la qoro waxaa la samayn jiray waxa la yihahdo muqaabala, in qof walba wuxuu qortay dib lasula eego oo la tifaftiro oo la saxo. haddii uu khaladkaas yimaado marka oo xadiidkii waxaan aragnay qoraalkii inuu meel ka khaldan yahay, waxaa jirta haddii la bedelo waxay imanaysa qofkan kale ee isla wax sax. hadda waxaan rabay inaan ba'dii aan khalday alxayatu sawdaa in aan saxo. marna siin baan ku qoray, marna wax kale aan ku qoray. taasoo kale waxaa laga yaabaa qofkii rabay inuu wixii saxo inuu isagu khalad kale kusii dhaco. culimadu waxay yidhaahdeen warka saasoo kale qofku marka uu helo ma aha inuu asalkii khaldanaa bedelo, waa inuu kii saxda ahaa ku garab qoro, halkanoo kale inuu kaga garab qoro. culimadu waxay samayn jireen markay xadiisyada qoranayaan siduu wax walba siduu ahaa intay u qortaan, in haddii khalad meeshii ku jiro ay khalad sidii saxda ahayd ku dhinac qoraan si ay khaladka u baraarujiyaan. cashar hore waxaan ku soo marnay imaamu shaafici oo xadiid ka warinay imaam maalik, oo imaam maalik uu magacii kala bedelayo, magacii ibn alxakam inuu bedelay. marka imaam shaafici wuxuu kii intuu saxay laha magacu sidaas weeyaan uu haddana sheegay uu yiri waxaan u malaynaya in uusan imaam maalik magacii sidii uu ahaa u xifdiyin. markas la saxayo meel tasxiif u galay ama taxriif u galay, culimadu waxay samayn jireen in lagu garab qoro ee aan halkan wixii ku qornaa la tirtirin ama la taabanin, ee sidiisii loo daayo laakiin la baraarujiyo lagu garab qoro si aan khalad kale loogu sii dhicin haddii ayba dhacdaba. marka haddii dhibcihii ay khalad ku yimaado oo xadii loo bedelay wixii la mida waxaan leenahay waa musaxaf. haddii xarakadii ay khalad ku yimaadeen waxaan leenahay waa muxaram. wayna fududahay magacyada isnaadka in saasoo kale dadkii laysugu khaldo. waayahay intaa waxaa inoogu sii xigta marka oo sheekhu inoo tilmaamay markii uu yimaado xadiidka ereyadiisii iyo macnihiisii haddii loo baahdo in la faahfaahiyo la fasiro, in ay jiraan kutub laga qoray oo loogu noqonayo oo macnihii sheegaya. hadda ereygii waxaan soo aragnay xadiidka mudrajka ka dhigay fayataxanathu uu imaamu zuhri uu ku fasiray wa huwa tacabud. marka ereyada sidaasoo kale gariibka ah ee fasiraadda u baahan kara wuxuu leeyahay sheekhu fain khafiya almacnaa macnihii hadduu qarsoomo ixtiija ilaa sharxi algariib. ereyada macnahoodu ereyada cusub macnahooda in la fasiro loo baahan yahay iyo bayaani lmushkili minha. kutubta laga qoray waxaa ka mid a kitaabkan. kutub badan baa laga qoray. markii dambe ibnulasiir raximah llahu tacaala ayaa intii ka horeysay oo dhan intuu isu keenay ayuu kitaabkan oo ah kitaab marjic ah oo loo noqdo ayuu ka soo saaray. culimadii ka horeysay oo dhan wixii ay qoreen ay diyaariyeen intuu isu keenay ayuu wuxuu qoray kitaabkan la yihahdo annihaaya fi gariibi alxadiidi waalathar. waxaan ka arkayna inuu yahay kitaab weyn intaasoo mujalad ka kooban. sidoo kale waxaa jira kitaab la yihahdo mushkil aathaar ama sharx mushkil aathaar oo leeyahay imaam taxaawi ka qoray caqiidatu taxaawiya oo isna saasoo kale waxyaalaha ereyadiina macnaynayo. sidoo kale xadiidtii mukhtalifu xadiidka aynu ka soo hadlaynan lahayn marmarka qaar xadiisyadii u muuqday inay iska hor imanayaan aynu qaarkood qaabku imaamu shaafici isu waafajiyaan kasoo hadlaynin ayuu sidoo kale isna samaynaya. oo xadiisyadaas u muuqda in ay iska hor imanayaan inuu fasiro macneeyo oo qaabka aysan isaga hor imanaynin uu u sheego oo u jidbixiyo. sidoo kale ereyada cusub ee fasiraadda u baahan inuu macneeyo oo uu fasiro. intaas
ayuu casharkeeni insha allahu tacaala inoogu soo dhammaaday maanta. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.